waxgaradka odayaasha iyo nabadoonnada degmada Maxaas ee bariga gobolka Hiiraan ayaa ka dalbaday wasaaradda waxbarashada Hirshabelle tan federaalka Soomaaliya jaariyadaha reer Hiiraan hay'adaha samafalka iyo dadka kale ee muxsiniinta ah ee eebba wax uu dhiibay inay ka caawiyaan dhamaystirka dhismaha xarunta Agoonta Shiiq Maxamed Macalin ee degmada Maxaas ku taalo oo duruufo dhaqaale oo jira awgeed loo dhamaystiri waayay. xarunta Agoonta Shiiq Maxamed Macalin ee degmada Maxaas ayaa dhismaheedu waxa uu hakaday kadib markii la waayay lacag lagu dhamaystiro dhismaha xaruntaasi waxa uu ku hakaday qaybta aasaaska waxaana dhismaha xarunta haddii la dhamaystiro uu ka qayb qaadan doonaa in ay daryeel waxbarasho iyo xanaaneyn guud ay helaan caruurta agoomaha ah ee ku nool gudaha degmada Maxaas iyo deegaanada hoos yimaada. haddii aan ka hadlo meeshan hadda maanta taaganahay oo ah xaruntii Agoonta Islaamka ee degmada Maxaaseed aasaas ayay joogtaa. waxaa aasaasay dadka u dhashay degmadan gobolka Hiiraan qurba joogta dhammaan hay-adaha islaamka meel uu joogaba ayaa ka qayb qaatay. waa uga mahad celinaynaa 100% sidoo kale hadda aasaasay joogtaa. waxay u baahan tahay in la gaarsiiyo halkii loogu talagalay oo ay wax ku noqon lahayd oo agoonta ku kobci lahayd oo ay wax ku bara lahayd oo ay wax ku cuni lahayd oo ay dad ku noqon lahaayeen oo ay dalka iyo dadka ku anfici lahaayeen oo ay agoontinimada uga samata bixlaayeen in la gaarsiiyo ay u baahan tahay. waxaana gaarsii kara dhaqaale iyo maskax midaysan oo ka soo baxda dhammaan inta ka qayb qaadanaysa oo islaam ah ama shakhsiyaad ah ama jamac ah ama dalka joogta ama dibadda jirta ama Soomaaliya joogta ama qurbaha jirta ayay ka imaan kartaa. waxaan ka codsanaynaa dhammaan inta arrintan u jeeda oo danaynaysa inay u danaydo agoonta oo ay u taabageliso mashruuca meeshan aasaaska ka saddexaad in alla intii aragta cabashadan ay dhaqaalaheeda ku bixido oo inaga taakulayso agoontan danaysan ayaan ka codsanaynaa. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan codsi ka nahay xarunta Agoonta Shiiq Maxamed Macalin oo degmada Maxaaseed ku taal ayaana codsi ka nahay in marka wixii waxgarada oo islaama ama quramada ha jiraano ama dalka ha joogaane inay horumar gaarsiiyaan oo meeshii loogu talagalay oo dhinacafigeeda laga heli lahay inay marka u gurmadaan ay wax u qabtaan. saasaan codsi ka nahay wixii waxgarta oo islaama intaasaan codsi ka nahay. nabadoon cilmi hagar guure oo ka mid ah nabadoonnada dhaqanka ee gobolkan Hiiraan oo dhawaan howlo shaqo ku gaaray degmada Maxaas ayaa isaga oo ku sugan bartanka xarunta Agoonta Shiiq Maxamed Macalin ee degmada Maxaas wuxuu dheer ku codsaday in dadka muxsiniinta ah ee waxaysta in dhismaha xarunta Agoonta Shiiq Maxamed Macalin ee degmada Maxaas ay ka caawiyaan in dhidibada loo taago. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ah nabadoon cilmi hagar guure maanta waxaan joognaa xaruntii Agoonta Shiiq Maxamed Macalin ee degmada Maxaas. waxaan ka codsanaynaa dadka muxsiniinta ee islaamka ah iyo ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan hadday hay'ad yihiin hadday jamac yihiin iyo hadday fardi yihiin inay agoontaas caawiyaan. dhismihii asaas buu marayaa. waxaan rabnaa agoontaas waa sadaqatul jaaliya inaad agoontaas u tabarucdaan waxaad ilaahay ini siiyey idinkana ilaahay aakhiro idinku shafeeco. waxaan isugu nimid odayaashii degmada Maxaaseed agoontii xarunteedii aan isugu nimid. waxaan ka codsanaynaa ummadda muslimiinta qaasatan Soomaaliyeed oo muxsiniinta ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan inay si degdega ugu soo gurmadaan xaruntaas agoonta oo ay u dhamaystiraan. intaasaan hadalkii ku soo koobaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
caruurta agoonta ah ee ku nool degmada Maxaas ma helin kaalinta waxbarasho ee caruurta asaagooda ah ee labadooda waalid ay u nool yihiin xilligan ay helaan waxaana sababay duruufo dhanka dhaqaalaha ah oo ka hor istaagay in ay waxbartaan waxaase caqabada caruurta haysata looga gudbi karaa in idibada loo taago xarunta agoonta Shiiq Maxamed Macalin ee degmada Maxaas. Maxamed Ibrahim Siyaad telefishinka caalamiga ah ee Hiiraan Bile degmada Maxaas.